shirkii golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta uu shuruudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanya ayaa lagaga hadlay qodobo ay ka mid ahaayeen arinta qaadashada kaarka codbixinta ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo sida habsamida ee ay uga socoto waxaana shirkaasi golaha wasiirada ee Soomaaliland ee maanta shacabka Soomaaliland ee u socdaala wadanka Soomaaliya gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee u socdaala wadankaasi looga digay inay ka taxadiraan tagitaanka wadankaasi haddaba afayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Ciga Xuseen Dayr oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabahaasi iyo shirka golaha wasiirada Soomaaliland waxyaabaha ka soo baxay ee lagaga wada hadlay waxaanu kaga jawaabay afayeenka madaxtooyada Soomaaliland arintaasi sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ay bishu tahay 17kii bishii 8aad 2017 shirkii golaha wasiirada oo shirgudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa lagaga hadlay laba qodob oo muhiim ah qodob waxa weeye qaadashada kaarka gobolada Sool iyo Sanaag iyo habka ay uga socoto waxa warbixin madaxweynaha warbixin aad u tafatiran oo faahfaahsan ka siiyay habsami socodka qaadashada kaarka iyo guud ahaanba arintaas sida uga socoto labada gobol wasiirka qorsheynta qaranka Masar Qabyatire محمد آدم إبراهيم قبيتره iyo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi guud ahaan labada wasiir waxay si faahfaahsan oo qoto dheer uga hadleen sida labada gobol ay uga socoto diiwaangelintu carqaladaha ay la kulmeen guud ahaan waxyaabaha u baahan in laga taxadiro labada wasiir waxay madaxweynaha siiyeen warbixin waafiya oo ay sheegeen in guud ahaan si nabadgelyo ay uga socoto qaadashada kaarku labada gobol Sool iyo Sanaag dhul aad u baaxad leh ay wasiiradu mareen oo min hadaaftimo ilaa kala bayd laascaanood dharkeygeeyo ceerigaabo guud ahaanba gobolada labada gobol ee baaxad ahaan dhulka ugu weyn Soomaaliland ku fargareeya ama ay ka kooban tahay si aad u qurux badan ayay uga socotaa habsami socodka qaadashada kaarku waa arrin muujinaysa qarannimadeena dimuqraadiyadeena iyo biseylka ay ummadeenu leedahay in si quman oo qiimo badan leh ay uga qayb qaataan doorashada madaxtooyada ee fooday nagu soo haysa biidmillaah kariim 13 bisha November 2017 madaxweynuhu uga mahadnaqay wasiirada iyo waftigii kale kamid ah xukuumadda sida ay uga hawlgaleen isla markaana ay ugu guntadeen in nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo xasilloonida ummadii kaarka qaadanaysay loo sugay xukuumaddu waxay uga digaysaa dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u socdaalaya xamar iyo dadka ku suganba nabadgelyada meeshaasi inaan ahayn meel isku aamini karo aniga ku hadlaya afka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan taasi u dirayaa Xasan Cabdi Cawad oo caruurtiisa qaar ka midna ay ku dhinteen qaar kulmudna dhaawac halisa ay ku soo gaareen falka waxshinimada ee lagu la kacay ummadda Soomaaliland ku nool xamar waxaan uga digaynaa inuu dhulkaasi nabadgelyo ahayn ay ka taxadiraan go'aana ay ka qaataan Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi warbaahinta qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa